golaha guurtida Somaliland ayaa maanta u yeeray wasiirka wasaaradda ganacsiga Somaliland Maxamuud Xasan Salebaan Sacad Saajin oo ay wax ka weydiiyeen tubaakada halis oo dalka lagu soo daayay. Wasiir Saajin waxa uu markii ugu horeysay ka marqaati kacay in wasaaraddiisu ay dalka ku soo deysay tubaakadani isla markaasina waqtigan wasaaradda caafimaadku ay gacanta ku hayso. waxaana ka mid ah hadaladiisii markay timiday badacadu way yimaadeen dad ka hadlaya ayaa loo yimiday saalaadiyada waxna ku hakinay madaarka baaritaan baa lagu sameeyay waxaan leenahay hay'ad tayaan leenahay hay'adii tayadu waxay approve kareysay inay tubaakooyinka la bidda sida leejligeed iyo processkii soo martay moogtay lagu cashuuriyay wadanka soo gashay hadii moogtay laga helay moogtahay xanuun hadii laga helay oo arintii tayadu ay ku approve kareysay waxa ka qaldan leeyahay caafimaadkii la soo bariyo xamse maxamed muuse cawke real tv hargeysa.